cabdimahad cusmaan siciid waa xirfadle iyo farsamayaqaan ku nool degmada Carmo ee gobolka Bari waxaana uu soo saaraa agab muhiim ah oo ay u baahan yihiin bulshadu. Agabkan oo uu ka sameeyo daasadaha iyo karaatunta sigaarka oo uu si xirfadaysan u sameeyay ayaa bulshadu waxay uga faa'iideystaan goobaha ganacsiga sida hoteelada, dukaanada iyo qurxinta guryaha. xirfadle cabdimahad cusmaan siciid oo wax soo saarka agabkan ku howlanaa muddo 10 sano ayaa sheegay in agabkan uu markiisii hore deegaanka qashin ahaan tari jiray balse uu u bedelay mid ay bulshadu siyaabo kala duwan uga faa'iideystaan. cabdimahad cusmaan siciid baa baaban ku bilaabay horta baakista ka bilaabay waa taasada faasuulida waxaana ka sameeyay sigaarka baakada sigaarka oo la tuur madaxiisa waa madaxa iyo taasada faasuulida waagi dama korban u dalacay waxaan ka sameeyay caarqoorihii oo la tuuray daasada caarqoraha labada shay horta ka sameeyo waxa meeshan yaalo waa baakada iyo daasad waxaan baasad meesha u dhaxyay waa daasad tan waa Puntland baa ka dhigay tan Soomaaliya ka dhigay tan nanaca dukaamadan u iibiyay iyada tan iyo kuwa dukaamadan u iibiyay waraaqaha maqaaxiyaha cunada iibiya waraaqaha ku qortaan iyaguna waa u iibiyay Puntland weeye calanka Puntland baa ka dhigay وقتها بدنا بلام يا بلام بانو حفيسيه ديالسا حال alaatii ku qoran xadiisada waraaqay ku qoran sida Soomaaliya iyo Soomaaliya u baahan waxa Soomaaliya waa gaarsiiyay waxa labada shay ka sameeyana waa waxa labada shay ku daafada lagu xoolo oo la tuuro dadku tuuraan laakiin Soomaalidu hadii ay rabto inay wax sameeyso wax kasta waa sameyn kartaa iyadan soo taxalujeen hadda labada shay ka saaka bilaabay hadda meeshan ay fiir taabtu leeyahay tantu leeyahay wax kasta waa horta asaaskiisu waa ka bilowga weeye taasa loo sameeyaa waa baakada sida loo wareejinayaa marka hore waa ka haduu hanji baan marnaya ayuu nooca kala marnaya waa taakaasi ka bilaabata taasa uu soo qoray halka qori baa mara barta aad ma qori baa maraya qoriga waa ka qoriga ku haya waa iskoobihi la tuuray madaxiisa iskooba jabay la tuuray weeye waxaan waa daasad iyo baakada iyo iskoobaha horta wax kasta isku fiirina wax kasta waa la sameyn karaa dibadaha managa u baahneen bal wax kasta Soomaaliya ka sameyn karaa waa la isku taxalujiyay alaabaha iyada ka dhanbad ku leeyahay miiska dhiganaysa qolkaaga dhiganaysa wuxuu ku qaaday aad nooc walaal jeeliga alaaba dhanbad ku qorsa wixii yar dhanbad ku qorsa cabdimahad cusmaan siciid ayaa agabkan u iibgeeya si xirfadaysan waxana uu agabkan dusha kaga sii qoraa lambarkiisa kolka uu qofku ka iibsado kadibna waxa soo dalbada macaamiil hor leh marka ay helaan ciwaanka ay kala soo xiriirayaan. cabdimahad cusmaan siciid ayaa codsaday in laga gacan siiyo sidii uu u horumarin lahaa farsamadiisa. waxaan ku qoray adres cabdimahad markaa markii si aan la soo raaco loo soo gudbin loo soo samay waylaada meelka sajuurka Soomaaliya meelan geey mar qaar dibada u dhigay kuwa noocan dibada geeyo toddobaad dibada laga soo tulba ay wada la soo wadiya ay waxa uu baaraa in beel loo sameeyo baaraa xafiis la sameeyo aan ku sameeyo guri weyn loo sameeyo aan ku sameeyo aan doorkin qabsado ila shaqeeya baan u baahanay waxaan u baaqayaa dadka qof kasta farsamadiisa loo baqsiyo ma jecelahay aad arrinta gaarka ah ee xiisaha u yeelaysa farsamada cabdimahad ayaa ah in uu sameeyo bakis ka samaysan calanka Soomaaliya ama calamada maamul goboleedyada dalka kuwaas oo loogu talagalay in xafiisyada loo adeegsado. maxamed barre siciid maxamed daal raadiyaha iyo telefishinka dawladda Puntland magaalada Carmo.